بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله mar haddaynu isla aragnay ahmiyadda iyo faa'iidada ay leedahay platformka kan gaar ahaan qaybta website-ka haddaynu isla soo aragnay haddana waxaynu isla arkaynaa insha allahu tacaala qaybta dashboardka ee guud ee programka aynu isla arki doonaa qayb uu ka kooban yahay mid walba mid baynu dul istaagi doonaa mar labaad magacaygu waa ciise shaaciye aasaasaha dugsidannaajix.com halka kan waa dashboardkii waxaa ugu horeyn arki doontaa inta kalaasa ka diiwaan gashan iskuulkaaga inta macalin ka diiwaan gashan inta arday ka diiwaan gashan halkan waxaan ku soo qormi doonaa iyadana attendance-ga ee xuduurka ardayda ay halka ka heli doontaa haddaynu imaano qaybta classeska inta class ay jirta ayaad abuuran kartaa tusaale ahaan kale haddii uu jiro class la yidhahdo hingaad subaxle weeye ama full time weeye aan dhihi karna annaana lasii subaxle waaye haddaynu saaf karana classka kan waayahay classkan waanu saaf garaynay waayahay haddii class labaad haddaynu rabnaynu saaf garayno tusaale kale classkan magaciisa waxaa leedahay taxfiid subaxda ayuu dhigtaa ama full time waaye adleena waynu saaf garaynay waayahay laba class ay hadda sidaa noogu diiwaan gashaan qaybta macallimiinta aanu imaano macallimiinta waynu iyadana waynu diiwaan gelin karnaa macallimiinta anagoo ku dhufan doono buttonkaas ay ku qoran tahay add button haddii wax macallina kuma jiro waxaynu ku dhufan doonaa add button tusaale kale macallin ciise ayaynu diiwaan gelinaynaa nambarkiisa ayaynu ku diiwaan gelinay intaan shaqeeya fasalku dhigaa taxfiidka ayuu dhigaanaynaa waayahay macallin ciise waynu diiwaan gelinay macallinkana diiwaan gelino fasalka inkaadoo dhiga annaana macallin maryam nambarkan isla nambarkaygaan iska qoraya waayahay fasalka inkaad ayuu dhigtaa intaynu u imaanin qaybta intaynu fiirinin qaybta ardada waxaynu dib ugu laabanaynaa classeski waxaan u jeednaa fasalka inkaad macallin maryam ayuu dhigta fasalka taxfiidkana wuxuu dhigay macallin ciise laakiin wax ardaya oo halkan ku diiwaan gashan ma jiraan halkan sidoo kale waxaynu imanaynaa ardadii waxaynu diiwaan gelinaynaa arday kasta ee kalaaskiisa nu diiwaan gelinaynaa waxaanayna tusaalahaan kale maxamed ciise nambarkiisa waayahay dadiisa waxaan dhaynaa tusaalahaan kale waa 12 jir fasalka imise ayuu ku dhigtaa qiimahaan waxaa laga qaadanaya 25 hadba wix laga qaadaa meesha ku qoraysa fasal ku dhigtaa taxfiid ku dhigtaa automatically waxaa soo baxaya macallin ciise ay macallin u ah waayahay waynu safgaraynaynaa ardaygan ardaygan wuxuu ku safgaraysmi doonaa qaybta taxfiidka ayuu si toos ah ugu safgaraysmaya waynu soo arki doonaa haddaynu qaybta class ku laabano waxaynu arkaynaa hal arday ayaa fasalkan taxfiid ka dhigta sidoo kale hal arday baanu diiwaan gelinaynaa qaybta ningaada aynu qorno waxaan leynaa tusaalahaan kale axmed nambarkiisa nambarun baan hadda iska gelinaynaa fasalka wuxuu ku dhigtaa 20 haddii aad tusaalahaan kale aadan hilmaanta halka kan waxa weeye dib baa ka saxan kartaa qaybta fiiga dib kaga saxan kartaa training ama tababarid oo step by step aan isla qaadan doona insha allahu tacaala fasalka ku dhigta waa fasalka ingaada aa u dhigta macallin marina ayaa u dhigta waayahay waynu safgaraynay ardaygaas isagana haddaynu laabna qaybta classeska waxaynu arkaynaa hal arday ayaa dhigta halkana hal arday ayaa dhigta qaybta ugu muhiimsan ee programkeena uu leeyahay waxaa weeye waa xifdis progress uu leeyahay xifdiga sidoo kalena applicationkan haddii english ahaan baa noo saaran carabi ayaa ka dhigan kartaa oo carabiga dukuufida carabiga ka dhigata taqadum alxifdi heerka xifdiga uu maraayo carabigii wuxuu leeyahay soomaaligii sidoo kale horumarka xifdiga ayaa ku qoran hadba maxaa la yidhaahdaa luqadda doontida fahmaysa ay geysanaysaa aan ku daysano englishkeena halkaa waxaa kaga soo bixi doonaa inta arday xifdisay inta safxa la xifdiyey qur-aankii inta qof oo dhamaysa qur-aanka xataa uu ku safgaraynaya halkan waxaa nooga soo qormi doonaa ardadii la diiwaan geliyey ayaa halka inoogu soo bixi doonaa iyadana waayahay maxamed ciise iyo axmed hadda noogu qoran maxamed ciise iyo axmed wax hadda ay xifdiyeen ama pageska xifdiyeen dhammaantood waa 0 waxay xifdiyeen hadda ma jirto oo loo diiwaan geliyo ma jirto waxaynu samayn doonaa insha allahu tacaala inaynu diiwaan gelino axmed inuu xifdiyey aynu ka dhiganaa sidoo kale maxamed inuu xifdiyey maxamed fasalka taxfiidka haddaan imaano maxamed ciise wuxuu dhigtaa taxfiid ayuu dhigtaa waxaan leedahay suuraddu maraya waxaan marayaa alcimra ayuu marayaa tusaalahaan
meeqa aayad buu maanta ka baxay aayaduu ka bilaabay wuxuu ka bilaabanayna aayadda tusaalaan kale 25 ayuu ka bilaabay wuxuu ku geeyay aayadda 45 ku geeyay intaas aayadahaas uu ka baxay intee sadar waaye ama intee page weeye haddaanu mana qaybta pageska hadday page ay tahay 2 page waan leenahay haddii sadar ay tahane wuxuu ka baxay annaano 20 sadar ka baxay haddii 20 sadar tusaalaan kale ay tahay hal page ay ka bilaabatay waayahay aayadaas iyo aayadan al-Imraan meeshuu ka marayo aayadatan safxadayda imise way waxaan leenahay tusaalahaan kale waxa weeye waa safxada boqolaad kale ama annaano safxada 8aad weeye safxada 8aad juska 27 ay ku jira macnaha wuxuu ka bilaabay qaybta hoose ayuu juska ka bilaabay safxada 8aad halkan u diiwaan gelin waayahay macalinka u dhiga macalin Ciise ayaa u dhiga waxa way faalayar ka bixi ardaygan ka bixitaankiisa aad buu fiicnaa ma sha Allah baynu qorinaa soo kale dhibcaana waxa way hadba inta aad doonaysaa siinaysaa si seba aan isla arki doonaa insha Allah taala markaan training ka qaadanayno waxa way si guud dulmar iyo fahansiin ayuu halka u qaadanayna hadda waxaynu aragnay inaynu diiwaan gelin karno xifdiga waxaanu meesha inuu diiwaan gashan ardaygaas oo maxay yiraahdaa juskii 30aad madaxa la sii galay oo 6 jus ay isku xiraa la sii galay ayaa wuxuu xifdiyay hal page maxaa yeelay waxaanu qornay 20 sadar ayuu xifdiyay qornay hal page ay hadda sida inuu diiwaan gashan halka daamana laba arday inuu diiwaan gashan xifdiga la xifdiyay safxaadka ardadaas markuu isku geeyay hal safxa ayaa hal arday xifdiyay ayaa ugu qoran halkaan ayaa si seba oo arkaysa ardayda iyo xifdigooda iyo nidaamkooda haddana maana qaybta xuduurka waxaanu diiwaan gelin karnaa ardayda xuduurka maanta ama deeliga maanta ardaygan Maxamed Ciise waa uu joogay salaam kale Axmed uu soo daahay aan leenahay haddaynu safgarayno oo dashboardka imaano waxaynu arkaynaa arday walba ee meesha la diiwaan geliyay ayaynu arkaynaa hal arday ayaa joogay waa taariikhda maanta hal arday uu soo daahay si dulmaraya halka meesha soo geli doonta qaybta reportkeedana waa qayb aad iyo aad muhiim ah halka waxaa ku heli doontaa ardayga reportkiisa u daabici karto xuduurkiisa reportkada ugu daabici karto sidoo kale xifdiga reportkiisa u daabici karto waalidkii siin karto salaam kale Ciise fasalka Maxamed Ciise fasalka ku dhiganay aynu diiwaan gelino ama u daabacno waalidka ama nusino xifdigiisa ardaygan al-Imraan maraya maanta hal page ayuu xifdiyay taa waxa waalidka ayaa loo diri karaa madrasada magaceeda ku qoran ardaygan taariikhda maanta taariikhda sida ahayd wuxuu xifdiyay hal page ayuu xifdiyay waalidka si toos ah ayaa meesha lagu diri karaa tawaarin muhiim u ah waalidkana faa'iido u ah way haddaba macna qaybta fiiska ama lacag qaadashada labada arday midna $20 ku dhiganay kana 20 ku dhiganay lacagta baan ka qabanay waxaana ardayga $25 inuu bixiyo moobta aha $45 ku taagneed waxay noqotay 25 waa la bixiyay $20 ayaa dhiman haddana ardaygan wuxuu bixiyay salaam kale ardayga 20 ku taagneed isna wuxuu bixiyay leenahay qayb kamid ayuu bixiyay salaam kale 20 baa ku taagneed wuxuu bixiyay 10 waxaan leenahay ardayga waxaynu soo baxay ardaygaas qayb inuu bixiyay qayb ay ku artay waxaanu soo jaalaway hadda gudub buu ahaa oo ma bixinayd hada waa partial qayb ayuu bixiyay 10 ayaa weli ku taagan totalka lacag soo xorada 35 way halka 10 ay ku taagan tahay ardada dhigata waxa weeye waa laba arday mid kamid si toos ayuu bixiyay mid kamidna half ay ku taagan ardaygan lacagtiisa inuu dhameystirno salaam kale ardaygan 10 ku taagan ayuu bixiyay leenahay waxay noo soo baxday laba arday baa dhigata laba arday si toos oo bixisay wax arday ah oo lacag ku taagan tahay ama maxaa yiraahdaa qayb bixiyay hal ma jirto halkan waa setting oo aan ka saxeyn nidaamkii sidaan u jeedno waa nidaam dhameystiran aan rajaynaa insha Allah taala inuu ka wada faa'iideysano si safe training iyo tababaridna waa uu leeyahay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala si fiican uga faa'iideystaan ayna noqoto insha Allah taala meel anfacda macallimiinta ardayda waalidiinta inta anfacda insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.